بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة سو دوادا meel walba aad joogtiin asxaabi channelku waa qurux dumar official to kusoo dhawow haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay fadlan waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe saarto, like saarto, sii share garayso haddii aadan igu cusbeenne like-ta insha allah ila wadaag oo maxaa la dhahay like-ta ii saar, sii share garee asxaabtaada kale sii share garee marka waa haddaad igu cusbeen oo hore ay la joogtay aad ay u mahadsan tahay kaaga mahadcelinaya la joogaaga asxaabta cusub sidoo kale idinkana soo dhawaada minankiina waaye ha ismartiyeenina dhammaantiinaba isku soo duubo aad iyo aad idin jeclahay asxaabta qaaliga ah asxaabay videogan waxaa idin duubayaa maanta oo jimca idin duubaya laakiin isla maanta inuu idin soo gaari waayo ayaa laga yaabaa insha allah haddii ilaah yiraahdo asxaabta qaaliga ee aan jeclahay ee halkan ku jiro marka insha allah asxaabta qaaliga ah ayaantan video ma idin soo gelinin videogii u dambeeyay waxaan ka hadlayay macnaha dhar karis iyo meeshaad ka helaysiin jamlo tafaariiq taasaan ka hadlayay marka insha allah koley inaad daawateen aan rajeynayaa midda kaleeto asxaabta qaaliga ah ee aan jecla halkan ku jiro ayaantan videoyadeyda ma sheer garaysiin sababtoo ah 200 maba dhaafooyabo 300 markuu gaarayo sitimaan markuu yaalo waay marka ebalna saas ma ahayn waa ii sheer garayn jirteen marka waxaan rajeynayaa inaad boorka iga jafi doontaano oo aad ii sheer garayn doontaan haddii ilaahay idmo insha allah ii sheer gareeya 10,000 wax yar ayaa iiga dhiman asxaabta qaaliga ayaan jeclahay 10,000 igaarsiya ka badan insha allah waa rajeynayaa laakiin horta marka ugu horeysa 10,000 stepka koowaad aan gaarno asxaabta qaaliga ah asxaabey insha allah maxaa la dhahaa maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxaan joogaa dalka Kenya waxaan joogaa 2 isbuuc camalaan joogaa Kenya ayaan joogaa marka waxaan usoo aaday arrimo oo ani quseeyo insha allah markaan ka bogtane ma sii joogi doonaa waa arrimahayga muraadkayga markaan gaaro nin walba ilaahay waxaan uga baryayaa muraadka uu leeyahay inuu ilaahay gaarsiiyo isagoo kheyr asoo ugu jiro inuu ilaahay gaarsiiyo sababtoo waxaa jira muraad anaga aan leenahay oo kheyr noogu jirin oo ilaahay naga celiya ayaa jirto marka waxaan kheyr noogu jirin allah naga dheereeyo wixii kheyr noogu jirana allah na gaarsiiyo ilaahan ka baryeena subxaanahu wa tacaala anaga wixii kheyr noogu jiro iyo waxaan kheyr noogu jirin ma naqaano ilaahay ayaa yaqaano laakiin muraadadeen ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay kheyr noogu bedelo oo kheyr nooga dhigo insha allah aan isku soo wada duceyno dhammaanteenaba ducadu waa muhiim ducadu wax lacaga ma ahan walaalka haddaa u duceysid waxa waaye marisa mada furantaa ilaahay uu aqbalayaa marka adina ajiraa ka helaysaa insha allah kuwa isku wada duceeyay allah naga dhigo kuwii laga aqbalane allah naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka baryeena asxaabteyda qaaliga ah marka insha allah marka meeshaan maxaa u imaaday arrimo yar inaan ka dhammaysto sanad walbana waa imaadaa oo wax hadda ii kow ma ahan markaa isdhahane aad sii joogtid markaa isdhaho ma sii joogi kari anoo ilmahayga wadanin hooyo walba waa is ogtaa oo malaynaya meelaan ilmaheeda joogin ayna ka arkaynin ma joogi karto marka waa rajeynayaa haddii insha allah inaa aniga ilmahayga hal mar inta wada imaano markaasoo kale salka waa dhigan karaa lugtaa markaas ka xiranhay sooma laakiin hadda meelaan ilmahayga ka arkaynin markaan joogo waxa waaye waa laabkacaya waxaan qabsan lahay xataa ma qabsan kari ilaahu awlaada noo xafid rabbi raxmaano ilaahu adaan kaa baryayna awlaada noo xifdi intaan awlaad haysanin ilaahu awlaad siiya rabbi raxmaano adaa awoodda iskale ilaaha ayaa u baryaynaa insha allah asxaabteyda qaaliga marka saas markaan soo baxay waxaa kusoo talagalay halkan inaan joogo ayaan kusoo talagalay marka haddaba go-aan ma gaarin inaan baxo laakiin waxa waa laabta weli waxa waaye way liiqanaysaa xaggana way rabtaa intana way rabtaa
marka insha allah sidii qeyr ku jiro ilaahay ayaa og soma annaga ma ogin sidii qeyr ku jiro allah subxaanahu watacaala ayaa og ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka baryaynaa wixii qeyr ku jiro inuu ilaahayna waafajiyo yaa hooyo kasta waa sida meel walba hooyo kasta waxay jeceshahay meesha ubadkeeda joogaan inay joogto waxay kaloo jeceshahay meeshay hore u joogi jirto ana horta meeshaan hore u joogi jiray ilaan ba jeclahaybo meel kaleba ma jeclibo ilaahay amarkiis waan ku haystaa Soomaaliya ayaan ku haystaa yaa siiba Muqdisho ayaan ku haystaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaah subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa ilaahay inuu nabad nooga dhigo dalkeena nabad nooga dhigo haduu ilaahay subxaanahu watacaala xagiisa ayaan ka sugaynaa haduu dalkeena nabad noo noqdo had meel aan u baahanahay oo ilaahay abuur ma jirto marka ilaahay subxaanahu watacaala nabad ka sugaynaa asxaabtayda qaaliga ah asxaabay marka waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago safarkayga markaan soo baxayna ma idin la wadaagin oo degdeg ayuu igu ahaa marka insha Allah haddana wali go'aanba ma gaarinbo inkastoo danahayga iyo howlahayga inta ugu muhiimsaneed aan gaaray laakiin wali go'aan ma gaarin marka go'aan markaan gaaro waa idin soo xiriiri doonaa fiidiyoyana ma idin soo geliyo insha Allah macnaha waxaan ka wadaa markaan go'aan gaaro waa idin soo sheegi doonaa ama anoo Soomaali dhex taagnaa way arki doontiin hadii ilaahay idmo insha Allah marka ilaahay dalkeena nabad ha nooga dhigo asxaabta qaaliga ah nabad Allah nooga dhigo aamiintana noogu soo dadaala ilaahay dalkeena subxaanahu watacaala nabad ha nooga dhigo midda kale tan ayaantan fiidiyoyaal ma idin soo gelinin wax fiidiyo oo qurxinta ma idin soo gelinin gabdho ila soo xiriiray ayaa jiro oo ay dhaheen maxaa dhaca qurux dumaray qurxintii maxaa intay ka baxday marka gabdhahaasna waa u sheegay aad ay u mahadsan yihiin maadaama ay soo raadiyeen aad ay u mahadsan yihiin waa mahadsantiin ay idin leeyahay marka daali doona dhammaantiinaba inaa idin dhaho waa mahadsantihiin maadaama ay soo raadiseen insha Allah fiidiyoyadeena insha Allah markaan safarkan ka baxo wuu noo sii socon doonaa hadii ilaahay idmo oo dhinaca qurxinta laakiin hadda dhinaca qurxinta inaan soo geli karmo u maleynaayo laakiin hadii ii suurta gashana waan arki doonaa wax walbo waxay ku xiran yihiin waqtiga ayay ku xiran yihiin marka waqtiga Allah noo wacneeyo insha Allah laakiin fiidiyoyaal fara badan way ku jiraan Soomahan asxaabta igu cusub oo dhan waxay ka faa'iideysan karaan fiidiyoyaashii hore aan soo geliyay fiidiyoyaal fara badan ayaa ku jira channelka waxaan rajeynayaa kuwaas inaad ka faa'iideysan doontiin asxaabtii hore ila joogtayna insha Allah waa idin soo geli doonaa hadii ilaahay idmo waxaan rajeynayaa inaan idin soo geliyo mararka qaar fiidiyoyaal oo uga hadlayo qudaarta oo kaleeto qudaarta waxay ka qayb qaadataa jirka qurxintiisa ay ka qayb qaadataa fitamiinaadka ay ka qayb qaadataa waa rajeynayaa ayagana inaan idin soo geliyo hadii ilaahay idmo asxaabtayda qaaliga ah intaan ka gaari doono inaan qurxintii u soo noqdo marka asxaabtayda qaaliga ah ee aan jecelahay ee halkan ku jiro waxaan idinka codsanayaa inaad fiidiyoyada ii share gareysaan asxaabtiina like-ta siiba like-ta asxaabay like-ta iga dhisa sababtoo ah like-ta waxay channelka ayay kor u sii qaadaysaa oo daawasho badan ayuu helayaa laakiin haddaa channelkii soo gasho oodba soo gashay oo aadan maxaa la like saarin ya adigoo subscribe u ah haddaadan like saarin wax faa'iido uu leeyahay malahan because daawasho kaliya wax ma ii tarayso waana iga codsi like-ta waxay kor u qaadaysaa video ayuu kor u qaadayaa marka waxaan idinka codsanayaa inaad marka like-ta saartaan 300 oo qof aa lacala fiirsatay 10 qof aa like saartay marka wax faa'iido malahan marka waxna adna ma ka dhibaayo waxna ma ku dhimaayo waxna kaama dhimaayo inaad like-ta saarto marka waana mahadsan tahay haddaan like-ta ii saartaan waa idinkaga mahad celinayaa ilaahay yaa mahad iskale marka koowaad ilaahay yaa mahad celinayaa dhammaanteedna u mahad celinaynaa marka labaadna idinka ayaa mahad iskale oo waxaa la dhahay like-ta ii saartaan oo ii sii share gareeyo marka asxaabtiina kala gaarsiiyo fiidiyowga siduu 10,000 isugu xiro oo maxaa la dhahay daawasho fiican uu helo marka intaanba idinka ayaa isoo gaarsiiseen ilaah ka sokow idinka ayaa isoo gaarsiiseen idinka ayaa wax idinku ahay marka asxaabtayda qaaliga ah ee aan jecelahay
inta dhimanna hadda noo dhammaystira aadna ayaan u mahadsantihiin mar walba ka daali doono inaad dhaho waa mahadsantihiin marka sidaas daraadeed waxaan hadda idin sheegayaa in aan idin soo geli doono haddii aan ka gaara ayaga laftigooda qudaarta faa'iidooyinka ay leeyihiin qudaarta way tiro badan yihiin soomaha qurxintana way ka qayb qaataan marka sidaas daraadeed insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin haddii ilaahay idmo waa insha allah haddaan waqti u helo waan rajeynaya inaan waqti yar inaan helo oo idin soo geliyo qurxintana insha allah dib ayaan idinkaga soo geli doonaa haddii ilaahay idmo sababtoo ah hadda waxawaa anaa mashquul safaraan ahay marka saas daraadeed ma awoodi inaan hadda idin soo geliyo gabdhaha isoo weydiina kulley waan uga sheegay whatsappka ayaan uga sheegay dhammaanteedna aada u mahadsantiin asxaabteyda qaaliga ah mar labaad iyo mar koowaad waxaa idinka codsanayaa asxaabay inaad fideoga like saartaan isla fideogaan dhigtay like ay saara sii sheer gareeya asxaabta qaaliga ah reer qurux dumar marka aada ay u mahadsantihiin waa idinkasii tagayaa asxaabay waxaa idinkaga sii tagayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqo dambe oo xiiso leh fideogan fideoga xiga inta laga gaarayo insha allah